Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan hadda joognaa gabadhii muddada dheer xanuunsaneed, isla markaana mar walba la garab taagnaayeen walaalahooda jaaliyadda dibadda, musaacadada iyo kaalmeynta mar walba had iyo jeerba la garab taagnaayeen gabadhan, soona gaarsiiyeen labadii usbuuc lasoo dhaafay 640 iyo bar. maantana waxay u wadaan musaacado kale oo ugu talagaleen walaashooda ku dhibaataysan magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalkii hore Madiina waa laga soo wareegay, isbitaal Horlaa la imaaday oo qaabilsan lafaha. bishii waxaa lagu seexdaa isbitaalkan $150. 15 beri waxaa lagu seexdaa $150. 2 bilood hal bil waxay noqonaysaa $300. marka mar walba waxay u baahan yihiin reerkan, waxay u baahan yihiin in gacanta lagu hayo. gabadhana waa sidii hore way karoon tahay. lugtii la yiri waa la goynaa, la yirina waa ka badbaaday. waxaa suurtagal noqotay hadda in la kabo lugta, isla markaana biraha ku mudan lugta waad arkaysaan. biraha ku mudan lugta waa tahay, gacantana way kabmoosaa. keliya waxayn 15 beri kadib ayadaa u bilaabmayso. rajo badan ay qabtaa, way hadlaysaa. haye xanuunka see ku et hadda koronta maho haye see dareemoyto isbitaalkii hore isbitaalkan haye kuwaran walaalaha oo mar walba garbaha taaganyo walskin tuuraan bal may dhahlaaytay may dhahlaaytay maasha Allah de walaaliyalkay kaalmoyen de ilaahay kaalmoya. waa gabadha aad iyo aad u xanuunsaneed, hadda way roontahay, sidii hore way ka roon tahay. haye marka adiga soo haray haye walaalayaal mahadsantiin kistisini dhiibteen kaalmaysini waliib isada oo kaalme isan sinin dhiibteen ka kaabani birti walaatan birtu maqsuubsani hadan iiftiyanin dhigan. alxamdulillah walaalayaal mahadsantiin. jisii khayr dhigteen ilaahay siinsi hadan hadii